بسم الله الرحمن الرحيم. sida aad la socotaan baryahan waxay dawladda Puntland ay ku mashquulsanayd sidii isbedelka ku dhacay sarifka lacagaha ay wax uga qaban lahayd. sida aad la socotaan shilinka waxa ku socda qiimo dhac muddooyinkii la soo dhaafay ku dhacayay uu ka soo bilowday inuu 22 halkii dollar uu ahaa muddadii u dambeysana uu sii gaaray ilaa 45 taas oo dhibaato badan u keentay bulshada danyarta ah xoogsatada ah ee ku qaadan jirtay shilinka Soomaaliga ah lacagta dhididkooda. arrintaasi waxa ay abuurtay kalsooni darro ka timid macaamilka shilinka iyo ku dhaqankiisa iyo isagoo dawladdu ay xakameyntiisu ay ku adkaatay. daraasad badan oo lala kaashaday aqoonyahan iyo guddiyo fara badan waxaa dawladda u soo baxday meelaha dhibahu ka jiro inay tahay ku wareegidda lacagta iyo sida ay dawladdu u dhexmarto oo ahayd inay 30% ay dekada ku qaado. arrintaas waxay dawladdu uga gol lahayd in la xakameeyo qiimo dhaca shilinka ku dhacaya iyo lacagta badan ee soo galaysa deegaanada Puntland oo sababi karta qiimo dhacu inuu sii socdo oo dadka reer Puntland wixii lacagtii gacantooda ku jirtay ay qiimo beesho. arrintaas wuxuu ahaa go'aan golo wasiiro oo ay soo gudbiyeen khubaro dhinaca dhaqaalaha oo lagu qaatay. go'aankaas soo baxay 1 bishii December waxa lagu dhaqan geliyay in dekada Boosaaso 30% laga joojiyo. sidoo kale tana dawladdu intii kale ay isla macaamili jirtay shilinka inay sideed u qaataan. waxa soo baxday kalsooni darro iyo dad dana gaar leh oo si khaldan u tarjumay go'aanka dawladda ka soo baxay una sababeeyay in shilinkii Soomaaliga la joojiyay. dawladdu waxay qaaday tallaabooyin kale ee bulshada ay kula tashanayso ay fiirinayso khaladaadka iyo meesha ay wax ka jiraan kulamo waaweyn iyo oo gaar ah bay qabatay. waxa soo baxay in dawladda aragtideedii dad badan oo aqoon-yahano ah iyo dad badan oo ganacsiga ku jira ay u arkeen inay tahay tallaabo lagu xakameyn kara qiimo dhaca shilinka ku dhacay. inta wixii ka dambeeyay waxa suuqyadii ku soo noqday dawladda sidoo kale waxay qaaday in ay joojiso sahalka wixii $1 ka yar, in ay shirkadaha bangiyada ay ku amartay in ay furaan sarifka daaqad ay ugu talagaleen inay shilinka Soomaaliya ku sarifaan. sidoo kale bangiga dawladana lagu amray in iyaguna sarifka ay meesha ku sarifaan. arrintaas waxay soo celisay qayb ka mid ah kalsoonidii. waxa hore u socday shaqadii, waxa dib u bilowday macaamilkii shilinka. kadib waxa soo baxay culaysyo kale. waxa soo baxday in shilinkii kalsoonidiisii ay soo noqon weeday. waxaan dawladdu sii waday wada tashiyadii. waxa magaalada ganacsiga ah ee Boosaaso tagay madaxweyne ku-xigeenka oo la soo kulmay ganacsatadii darsay xaaladda halka ka jirta. waxa sidoo kale magaalada Gaalkacyo tagay wasiirkii maaliyadda oo isagana la kulmay bulshada halka joogtay iyo ganacsatadii iyo xaaladda jirta. waxa wasaaradda wasiir ku-xigeenada iyo xubnaha kale madaxtooyadu ay shirada joogta la yeesheen dadka ka ganacsada lacagta ku dhaqan magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe iyo Qardho iyo Gaalkacyo. daraasadaas faraha badan ay dawladdu waday iyadoo mar walba ujeedadoodu tahay sidii shilinka qiimo dhiciisa loo ilaalin lahaa dadka Soomaaliyeed ee Puntland ku dhaqan ay u heli lahaayeen adeeg lacageed oo u gooya qiimaha noloshooda ay u rabaan. sida la adligeed markaan dhinacyo badan ka ururinay arrimaha jira oo saameynta ku yeeshay shilinka waxa noo soo baxday talooyinkii aan ururinay markaan dhinacyo badan ka fiirnay oo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradda maaliyadda iyo xubno kale khubaro aan caawa madaxtooyada shir ku yeelanay qiimeynay arrimaha jira. kow waxa noo soo baxday dadka ama ganacsatada ah ama sariflayaasha ah iyo dawladdu isfaham buuxa
ayay ka lahaayeen muddadii arrintan socotay oo mar walba ay uga wada hadlayeen xalka tallaabooyinka dawladdu ay qaadatay waxay ahaayeen tallaabooyin mar walba ganacsatada iyo dadka arrimahan ku xeel dheer lagala tashanayay go'aanada mar walba ay qaadanaysana dawladdu waxaa saldhig u ahaa sidii ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka uu noqon lahaa mid fadhiya nasiib darro waxaa halkaa ka faa'iidaystay dad aad u fara badan oo dana kaleeta leh oo dalkii khalkhal geliyey oo ka faa'iidaystay dhibaatada ka dhalatay qiimo dhaca shilinka Soomaaliga ku dhacaya oo dawladduna ay tallaabo ay ku xakameynayso ay ka qaaday dadkaas oo runtii hadafyo kaleeto leh oo raba inay sumcadda dalka ay burburiyaan la eegtay mar walba oo Puntland ay u hinqato dhinaca horumarka iyo sumcadda iyo kasbashada dadka Soomaaliyeed sidii ay Puntland ugu kalsoonaan lahaayeen arrimaha maanta ka dhacay magaalada Garowe waxay sarsaan u ahayd ama tusaale u ahayd markii aan wareysanay ganacsatadii iyo dadkii ka shaqeynayay waxaa noo soo cadaatay inay wax raad ku lahayn wixii abuurmay maanta waxaa kaloo noo soo baxday in cabashada jirta iyo sida loo xalinayo ay ku qanacsanaayeen wada hadallada ay dawladda la wadaan iyo go'aanada ay ka dhursugayeen oo ku jiray marxalad wada tashi ah laakiin waxa maanta dhacay inay saameynteedu iyagu ilahayn saad ogtihiin magaalada Garowe waxaa lagu qabanayaa shir hay'adda Heritage ay wado waa hay'ad Soomaaliyeed oo cilmi baaris ah oo runtii muddooyinkii ugu dambeeyay sumcad weyn ka heshay Soomaaliya iyo Geeska Afrika iyo dhammaan adduunyada sanadkiiba mar qaban jirtay shir caalami ah oo looga hadlo arrimaha Geeska Afrika iyo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan muddooyinkii ugu dambeeyay lagu qabanayay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa markii ugu horeysay shirkaas ay garteen hawlwadeenadii hay'adaas inay ku qabtaan Garowe oo u arkeen meel ku haboon in ay martigelin karto dad 300 oo qof kor u dhaafay oo Soomaali ah oo deegaano kala duwan ka kala yimid oo isugu jira madaxda sarsare ee dawladda federaalka ah madaxda maamul goboleedyada iyo wasiiro xildhibaanada labada aqal iyo dad kale oo fara badan oo siyaasiyiin iyo aqoon-yahan ah inay ku lafagoraan xaaladda murugsan ee Soomaaliya maanta ka jira sidii loogu heli lahaa xal waara arrintaas waxa ka xumnahay in gacmo dad reer Puntland loo adeegsaday sidii dad Puntland sumcadeeda u burburin lahaayeen oo maanta hanti dawladeed iyo hanti shacabba ay u geysteen dhaawacyo aan munaasab ahayn oo ku haboon marka waxaan u sheegayaa inta aan go'aanka dawladdu ay ka qaadatay arrimaha kan oo lagu soo gambanayo aan sheegin in ay dawladdu ay og tahay dadka waxa ka shaqeynaya dadka iyo dadkaas waxa ka shaqeynaya dadweynahana isbari doonto ee u sheegi doonto inay yihiin dad cadow ku ah magacooda sumcadooda iyo sharafta u soo hoyanaysa Puntland iyo horumarka ay gaarayso iyo inay noqotay Garowe meel laga baadi goobo xalka Soomaaliya sidii hore u ahaan jirtay waxaan rajaynayaa shacabka reer Puntland in ay ku mintidaan nabadgelyadooda kala dambayntooda sumcadda deegaanadooda ilaaliyaan qof yar iyo qof weynba waxaan ka codsanayaa in ay u istaagaan inay martidaas soo sharaftay deegaankoodii ugu timid oo iyadu ka timid oo ku kalsoonaaday inay yimaadaan oo madaxda heerarka kala duwan ah ee isugu jiraan iyo murashaxiin xilka madaxweynenimada u tartamay madaxweynayaal hore ra'iisul wasaarayaal hore wasiirro hore iyo dad Soomaali intii macnaha iyo milgaha lahayd inay timaado dadka raba inay sharaftaas ka hor istaagaan inay ka hortagaan oo ilaaliyaan ammaanka iyo kala dambeynta iyo sumcadda dalka intaas markaan uga baxo dhacdadii maanta dhacday dabcan anagoo sii wadeynay wada hadalladaas iyo daraasadaas wixii ka soo baxay waxaa noo soo baxday inaan shacabka iyo dadka danaha dadka haya ee ganacsatada ah ee sariflayaasha iyo bulshada inteeda kaleeto cabashadii xaqiiqiga ahayd ee ka dhalatay kalsooni darrada arrinta dhalasay oo markii horena loo qaatay go'aan aan islahayn ha lagu xakameeyo burburka ku dhacay shilinka Soomaaliya laakiin si xun intii loo turjumay ay ka dhalatay kalsooni darro inaan kalsooni darradaas wax ka qabanno kalsooni darradaas waxay dawladdu go'aan ku qaadatay in lacagta dekada lagu qaadi jiray 10% shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birita ah sidoo kale dawladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridaayay waxa kamid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay
dadkii oo u wareegay lacagta elektrooniga ah oo isticmaalka shilinka uu yaraaday taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ah in $1 wixii ka yar aan lagu gadi jirin waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisu uu soo noqdo iyo baahidiisii sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay boqolkiiba $10 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin electroniga oo $10 iyo wixii ka sarreeya kaliya lagu adeegan karo shirkadaha ka shaqeeya iyagoo ku mahadsan siday dowladda ula shaqeeyeen naga aqbaleen go'aankii hore oo $1 ahaa naga aqbaleen inay furaan qayb electroniga oo shilinka Soomaaliga ah horena ay u furtay shirkadda Golis haddana ay maanta ay bilowday shirkadda Somtel annagoo uga mahad celinayna fahamkaas iyo adeegidaas bulshada haddana marka aan ururinay xogaha iyo baahiyaha iyo dadka u dhuun daloola sababta keenaysa inuu shilinku qiimihiisu hoos u sii dhaco inay qayb ka mid tahay iyadana waxaan qaadanay go'aanka ah in $10 iyo wixii ka hooseeya aanan lagu adeegsan karin arrimaha la yiraahdo isku dirka lacagaha dadka marka waxaan rajaynayaa inay go'aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqan gala oo bulshada Soomaaliyeed ay u hoggaansamaan labada qodob ugu muhiimsan waxa weeye in boqolkiiba 10 dekada lagu qaado in $10 iyo wixii ka yar $10 wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah electroniga marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan ha ahaato xawaaladaha ha ahaato dadka sariflayaasha iyo dawladda qeybaheeda kaleeto laakiin hadalkan waxa weeye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay soo fulayana waxa jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbedelka ku imaanaya arrimahaas waxaase uga baxaya hadalkayga in dadka ku dhex dhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeena waan uga mahad celinaynaa inay cabtaan waan uga mahad celinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan waan uga mahad celinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dawladda la soo xiriiraan shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan aaraadooda noo dhiibtaan taladooda ay nagu biiriyaan go'aankana aan ku qaadano macluumaadka aan ururinay waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa anagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid haddii wixii aan qaadano ay tala ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dawladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas khuseeya ay ugu soo mareen waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqeynaysan inay iska qabtaan Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udub dhaxaad u ah dhismaha dawladda Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka badiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta ay joogto ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ee soo dhaweynayaan inay si fiican u soo dhaweeyaan sidoo kalena cidii ku soo dhex dhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba in intay soo gaarin hay'adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan aad baa u mahadsantiin